soo dhawaada asxaabay muuqaalkan maanta waxaan kaga hadli doonaa ciyaar la yaab leh oo lagu magacaabo countdown ama ciyaartii tirinta. ciyaartan waxaa lagu ciyaaraa application app-kaasoo kuu sheegaya oo ku tusaya sanadka, saacadda iyo daqiiqada aad dhimanayso. arrinta kaasii bajanaysa kaana sii yaabinaysa ee app-kani waa in markaad la soo degaysid aad hoostiisa ku arkaysid kommentiyada kumanaan dadoo leh ciyaartani waa xaqiiqo dhab ah, iyagoo soo xiganayay qisooyinka dad application-kan dartii u dhintay. sidoo kale waxaa jira kommentiyo badan oo ay dadku ku sheegayaan inuu app-kani yahay habaar. sii daawo muuqaalkan sidaad u ogaatid xaqiiqada iyo sheekada ka dambaysa app-kan dadka ka yaabiyey iyo inuu dhab ahaantii kuu sheegi karo goortaad dhimanayso. ugu horreyntii intiinaan muuqaalka faahfaahintiisa gelin aynu xusna wax muhiima. marka horeba waxaad ogaataa in wax kastaba alla subxaanahu watacaala gacantiisa ku jiraan oo aanu jirin application iyo cid ogaan karta goorta aad dhimanayso. inagu markaynu nahay muslimiin mu'miniin ahna si fiican ayaynu hadalkaa u ognahay, laakiin ayaamahan waxaa tiktok haystay dad application-kan hadal haya oo ka cabsanaya. sidaa awgeed waxaan jeclaystay inaan sameeyo muuqaal ka hadlaya qisada iyo xaqiiqada app-kan countdown. bilowgii fikradda app-ka countdown waxay kasoo bilaamatay filin cabsi ahaa oo isla magaca countdown watay. filimku wuxuu ku bilaamayaa asxaab wada fadhida oo siday u caweynayeen ku heshiiyey inay ciyaaraan ciyaarta la yidhaahdo countdown. countdown-na waa ciyaar u sheegaysa una tirinaysa ciyaartooyada ciyaaraysa xilliga ay dhimanayaan. dabcan asxaabtii dhammaantooda way la soo degeen app-kii lagu ciyaarayay, halka sida inoo muuqata uu app-ku qof kasta u soo saaray inuu sanado badan kadib dhimanayo, marka laga reebo inantan lagu magacaabo Courtney oo uu app-ku iyada u sheegay inay dhimanayso 3 saacadood kadib. isla markiiba wax mobilkeeda ku bilaabmay tirinta xilliga ay dhimanayso, waxaana iyadii ku habsatay cabsi. waqti ka bacdi waxay saaxiibkeed oo lagu magacaabo Ervan kasoo wada baxeen xafladii. saaxiibkeed Ervanna waxa uu sheegay inuu doonayay inuu sii dhaweeyo oo gurigeeda geeyo, isaguna markaa uu leeyahay waan kusii dhaweynayaa. wuu sarqaansanaa oo khamri ayuu cabsanaa, laakiin Courtney waxay iskaga degtay gaadhigii, waxaana ka diiday inuu gaadhiga ku geeyo gurigeeda maxaa yeelay waxay ka baqday inay shil gasho oo ay dhimato. markii gaadhigii sidaa uga degtay istiri gurigaagii qabo, waxaa Courtney u soo dhacay fariin ka timid dhanka iyo application-kii u sheegay goorta ay dhimanayso. fariintuna waxay u sheegtay inay khilaaftay qawaaniintii isticmaalka app-ka. intii ay gurigeeda kusii wajahnayd waxay aragtay qof aanay garanayn oo daba socda. Courtney way cabsatay, waxaanay orod ku gaadhay gurigeedii. markii gurigii sidaa u gashay waxa u bilaamatay khaakhayiraad iyo inay maqasho codadkaasoo ka imanayay dhanka tuumbada biyaha. markay istiri raadi waxa uu codku yahay, ruuxaan ayaa intay kor u qaaday dhulka ku dhufatay, waxaanay dhimatay isla waqtigii uu app-ku u sheegay inay dhimanayso. yacni waxay dhimatay 3 saacadood kadib. anigu idinka wada sheekeyn maayo qisada filimka oo dhan, laakiin waxaan aragtay guud oo kaliya idinka siinayay halkay kasoo bilaamatay qisada app-ka sheegaya xilligay dadku dhimanayaan. filimkaasi markuu soo baxay kadib, koox ku takhasustay samaynta barnaamijyada ayaa la dhacday fikraddii filimka, waxaanay sameeyeen application dhab ah oo igu magac dareen isla ciwaankii filimka countdown. markaaynu app-kan la soo degno waxa ugu horreeya inuu arkaynaa waa sheekooyin iyo dhacdooyin la yaab leh oo ku dhacay dadkii isticmaalay app-kan. marka koowaad aad la soo degto app-ka, taleefankaagu wuxuu bilaabi doonaa inuu sabab la-aan gariiro, waxaanu soo dayn doonaa iftiin badan. taleefankaagu wuxuu samayn doonaa waxyaaba aanad hore uga baran oo yaab leh, sidii fayras kale baanu khalkhalayaa. intaa ka bacdina waxuu kuu sheegi doonaa goorta aad dhimanaysid. waxa iga yaabiyey kommentiyada dadka qaar leh app-kani waa xaqiiqo, waxaana dadkaasi kommentiyada kaga sheekeynayaan dhibaatooyinkii ay la kulmeen kadib markay app-kan isticmaaleen. waxaa ka mid a sheekooyinkaan akhriyay sheeko ka hadlaysa wiil lagu magacaabo Lucas. wiilku wuxuu jeclaa ciyaarta ice skating la yidhaahdo ee lagu ordo barafka. ciyaartaasina waxay u ahayd bahashan iyo hiwaayad oo markastoo wuxuu jeclaa inuu ciyaaro. si kastaba ha ahaatee, markuu Lucas la soo degay app-ku wuxuu sheegay inuu dhimanayo 72 saacadood kadib. isla markiiba wiilku noloshiisa ayuu iska sii watay, hadalkaasna waxba kama soo qaadeen. laakiin 2 cisho kadib waxay noloshiisii gashay qaasaawasalle, wuxuuna arkayay oo ku dhacayay shaye ama kaagle oon hore ugu dhici jirin. maalin waxa wiilka la soo hadashay saaxiibtiisa hore ay wada sheekaysan jireen, waxaanay u sheegtay inuu taxadiro markuu ciyaarayo ciyaarta barafka lagu ordo. Lucas wuxuu la yaabay fariinta ay u soo dirtay, sababtoo ah isagii saaxiibtiisa hore may wada hadal muddo 3 sano ku dhow. si kastaba ha ahaatee, maadaama wiilka iyo saaxiibtiisa hore uu si xun xidhiidhkoodu ku dhammaaday, dheg jalaq uma siin fariinta ay u soo dirtay, wuxuuna iska sii watay nolol maalmeedkiisii. maalinta xigtay siduu awalba samayn jiray waxa uu baxay sidoo u soo ciyaaro ciyaartii barafka lagu ordayay. markuu goobtii tegay wuxuu arkay meeshii oo cidlo ah, waxaana dadku meesha u iman waayeen. maalintaa waxaa jirtay duufaan, sidaa awgeed baanay cidna u ciyaarin maalintaa. haddaba wiilku markuu arkay meeshu siday tahay kamuu joogsana wuu isku qaaday. Lucasna waxuu ahaa dhalinyarada jecel inuu sameeyo adventure-ka iyo waxyaabaha khatarta ah, laakiin nasiib daro Lucas maalintaas ayuu dhintay kadib markii uu ka dhacay buur dheer oo aanu arkayn. waxyaabkaahina waxuu yahay inuu dhintay markii dhammaatay xilligii 72 saacadood ahayd ee app-ku qabtay.
waxaa jira sheekooyin kale oo ku saabsan abkan balse markana aanay dadku dhimanayn laakiin ay la kulmayaan waxyaabo cabsi geliya sida iyagoo caadigooda iska ah inay mar kaliya arkayaan qof eryanaya oo doonaya inuu dilo ama iyagoo guriga kaligood jooga in loo khaakhayrayo oo ay maqlayaan codad sidii inuu qofi guriga la joogo oo kale. I'm not very loud. I might do this later like okay, so he's the drop monkey. sidoo kale waxaan ku arkay TikTok gabadh leh kadib markaan isticmaalay aabkan waxa fariimo ii soo diray dad aanan garanayn waxay yihiin oo igu leh waxaad dhimanaysaa 666 cisho kadib. waxa kale la yaab kale ay dadku hadalhayaan waxa kamid ah in markaad la soo degtid application-kan inaanad dib uga saari karin taleefankaaga oo xitaa haddaad ka saartid uu dib ugu soo noqonayo. laakiin marka dhanka kale ee cagsiga ah laga eego waxa jira oo la helayaa dad application-kan la soo degay oo tijaabiyay laakiin aanay waxba ku dhicin markay gaadhay waqtigii uu sheegay inay dhimanayaan. Nothing. Is that your phone? Are you sure? anigu xitaa waxaan jeclaystay inaan eego tijaabiyo markaan la soo degay waxa uu soo qoray inaan dhimanayo 13 sano kadib. markaan isiri barnaamijka iska saarna anigoon wax dhibaato ah la kulmin baan iska saaray dibna iguma soo noqon. iminkana waxaan soo gaarnay gabagabadii muuqaalka. haddii aad hore u tijaabisay abka aynu ka soo hadalnay commentiga nagu reeb waxaad kala kulantay. ugu dambeyntiin haddaad mawduucan ka heshay like tahay ilaawin sidoo kale nagu soo biro subscribe saar waana inoo muuqaalka kan xiga.